deeqdan ay isku soo aruuriyeen shacabka ku nool dalka Turkiga waxay gaaraysaa 13 kun oo tan oo isugu jirta daawo iyo raashin waxaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada dalka Soomaaliya. Olgan Bakar safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxa uu sheegay in abaartu ay weli ka jirto deegaano ka mid ah gobolada dalka sida Bakool, Jubbada Hoose iyo Baay. Türk Kızılayı'nın organize ettiği bu gemide markabkan waxaa dalka keenay hay'adda bisha cas ee dalka Turkiga waxaana saaran 13 kun oo tan oo isugu jira raashin iyo daawo. raashinka waxaan ku wareejin doonaa wasaaradda gargaarka, daawadana waxaan ku wareejin doonaa wasaaradda caafimaadka. waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay gaarsiin doonto raashinkan dadkii u baahnaa maxaa yeelay saameynta abaaraha weli way ka muuqataa gobolada qaar ee ciddi bir şekilde yaşanmaktadır. waa deeqdii labaad oo dawladda Soomaaliya la wareegto muddo hal bil gudaheed ah. shanta bishan aan ku guda jirna ayaa ahayd markii wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya ay deeq raashin ah kala wareegtay dalka ugu jasiiradaha badan dunida ee Indonesia. xildhibaan cilmi Cumar Ceynaashe wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa artiyan u sheegay in deeqdan ay timi waqti loo baahnaa dhawaanna la gaarsiin doono meelaha ay abaartu ka jirto. maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka gudoono markab deeqa oo ay noo keeneen walaalaheen Turkiga ee bisha cas markabkaas ay soo ururiyeen shacabka Turkiga aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. markabkaas wuxuu ka kooban yahay 13 tan 13 tan waxaa loo qaybin doonaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka insha Allah taala waxayna loogu talagalay dadka abaartu saameysay in la gaarsiiyo. deegaanada ku yaala dhulka fog ee miyiga ayaana weli ka curan roobabka guga waxayna taasi sababtay in kumanaan xoolo dhaqato iyo beeraley ah ay nolol u soo raadsadaan magaalooyinka qaar ee ku yaala gobolada dalka. hooyo waan dadkan aan kamid ah adduunyan iska lahayn adduunyada waa dhamaatay oon iyo baahi yaa dhamaysa marka hooyay macaan waa la iska rafaadsan yahay aad iyo aad baa la iskaga rafaadsan yahay dhaxan baan ku seexanaa biyo la'aan baan ku seexanaa hooyay macaanow ribi waa naga gulay ceelasha way naga guleen hantidiina waa dhamaatay dawladda waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogto wax kasta ay tahay midig inay na siiso taasaan ka codsanaynaa. waxaan tagnay meelo badan oo gobolada dalka ka mid ah si gaar ah waxaan tagnay degmada Xudur ee gobolka Bakool meelaha qaar waa go'doon roobab ka mid ah degmada Bardaale oo kale sidee loo gaarsiin karaa cuntada. ceel Bardaale aniga waan tagay kula hadlay ceel Bardaale bishii hore deeq baan na gaarsiinay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa meel kasta oo qof Soomaaliya ku nool yahay oo abaari saameysay ama dhibsan inaan insha Allah gaarsiino. wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxay mar walba u heelantahay diyaarna u tahay iyadoo ku shaqaynaysa siyaasadda dawladda nabad iyo nolol oo hogaaminayo madaxweyne iyo ra'iisul khayre inaan iyada ku shaqeyno qof kasta oo bini aadan oo wax tabanaya inaan gaarsiino muwaadin Soomaaliyeed. Aways Maxamuud Julcawaartiyaan Muqdisho.